Soomaalidu waa inay fahmaan loolanka. Adduunka oo dhan waxaa ka socda loolan iyo horumar. Waxaa ka mid ah kuwan. Waa inala mid ah oo sameynaya horukac aad u ballaaran iyo weliba kansho ay isugu diyaarinayaan inay u helaan 100 sanadood kadib. Waxay sameynayaan horumarin bini'aadan iyo sidoo kale daleed. Waxay doonayaan inay samaystaan difaac. Sidoo kale waxay rabaan inay samaystaan horumarro waaweyn oo dhan kasta ah. Hadday tahay tiknoolajiyad, hadday tahay difaac, hadday tahay weerar lagu soo qaado ay ka hortagaan, hadday tahay wax soo saar beeraha iyo dalagyada. Sidoo kale waxay rabaan inay samaystaan mustaqbal. Ubadkoodu waxay rabaan inay helaan waxbarasho. Waxay kaloo ka fikirayaan midnimada ummadooda. Waxay ilaalinayaan qarannimo. Waxay sidoo kale ka fikirayaan inay samaystaan ciidamada adduunka ugu wanaagsan dal kasta. Bal fiiri dhammaan waxa ka soconaya adduunka iyo sawirada ka imaanaya. Kordhinta ciidamada, tayeynta caafimaadkooda, qalabeyntooda, adkeynta xuduudaha. Qaarkood waxay aadayaan hawada sare. Waxayna u socdaan in ay mustaqbal ka ogaadaan waxa ka socda korkeena. Dhawaan waxaa la diray dayax-gacmeedka dunida ugu weyn kaasoo soo indha-indheed doona wax loogu yeedhay samada fog ee weli la gaadhin. Xataa hadday been tahay waa isku day iyo jihayn umadeed. Dhammaan ma jiro waxyaalo beeninaya sawirada halkaasi ka imaanaya. Waxaana jira xataa culimo islaama oo haddeerta daahfuray fadwooyin waaweyn. Fadwooyinka culimada sameynaya waa kuwa Asia, gaar ahaan dalalka Pakistan, Malaysia, Indonesia, Bangladesh iyo dadyoga kale ee cilmiyada isku dhafan leh. Masaarida ayaa sidoo kale ka mid ah, waxayna heleen xadiis saxiix ah ayada Quraan Kariimka ah oo fahamkooda hadda dadka qaarkood ay ku soo dhaceen kadib markii la arkay daraasadan waaweyn. Aadanuhu wuxuu doonayaa inuu jiheeyo ummadda oo dhan. Waxa ay kala doonayaan inay hangeliyaan da'yartooda iyo sidoo kale inay iskuuladooda ballaariyaan manhajyada waxbarashada la soo saaray waxaa ka mid ah kuwa oranaya xataa in laga kaaftoomo dhammaan waxyaalaha dareeraha ee la isticmaalo ay ku jirto shidaalka, gaaska aan dabiiciga ahayn iyo sidoo kale naaftada. Waxay ka wadaan in ay dadku ay la yimaadaan halabuur. Halabuurkaasi wuxuu noqon karaa mid kor u qaadaya hanka ubadka ay maanta diyaarinayaan. Laakiin inagu xaggee ayaynu joognaa? Weli waxaynu ku jirnaa car sidoo kale weli waxaynu maranaa heer ay aadanuhu ka soo gudbeen qaarkood 300 sanadood ka hor. Tusaale ahaan dalalka reer galbeedka ee aad aragtaan maanta in lagu dhaato qof walbana uu doonayo inuu u tahriibo, kuwa kale ay hansanayaan inay baasaboorkooda helaan. 300 oo sanadood oo ka hor maxay ahaayeen? Waxay ahaayeen halkan inuu joogno meelan joog. Inagu maanta waxaynu joognaa 2021 waxaynu ku sii siqaynaa sanadkii 2022. Qarnigan maanta aynu joognay 2021aad. Ma kula tahay in dad inaga inala mid ah waxan ay marayaan? Dad yow kale ayaa lagu khasbaya iyagu inay dib u noqdaan, laakiin doonayeen inay hore u socdaan oo ka mid ah qaaradda madow iyo kuwa kale. Waxay leeyihiin maya. Inaga maxaynu rabnaa?